kulanti wacan asxaabay waa mar kale iyo barnaamijkayga Jamiila Show maanta waxaan idinkugu wadaa hambalyo dhalasho oo farxad leh wariye sare Xamda Xaaji Oktoobar iyo asigana wariye kale oo sare oo asna ka liidan Naasir Cadceed ayaa waxay gabar igu dhalatay magaaladan Luton oo markaasi London aan sidaa uga fogay runaantii aad baan ugu farxnay maasha Allah dad badanna way ku farxeen waa hambalyo dhalasho oo aan hore loo sii shaacin uurkeeda laakiin maasha Allah laga dhigay surprise aad baan ugu faraxsanahay haddaanu nahay dhammaan bahda saxaafadda iyo intii kale maasha Allah qof maaragtay ku farxsaneed amaba sugaysay maaragtay sidan oo kale inay u farxaan maasha Allah asxaabay caawa hargaba ahay iga raali ahaada laakiin waxaan ka joogi waayay uun hambalyada Xamda ayaan ka joogi waayay iyo Naasir Cadceed maasha Allah tabaarakallah gabar baa ugu dhalatay magaalada Luton gabadha yar waxaa loo baxshay Taqwa galabta markay saacadu ahayd abaarihii 4 wax la jira galabnimo ay dhalatay maasha Allah Taqwa yar waxaan ku leenahay soo barbaartii dalka iyo dadka iyo diintaba anfacda Allah ka dhigo bahda saxaafadda maasha Allah ayana hambalyo dirayaan anaa ka wakiil inta kale ayana soo hambalyeysana waa maasha Allah inta kalena bulshada sida arkaysaa fariimaha waxaa soo diraya dadka oo ku soo hambalyeynaya buga Xamda iyo Naasir Cadceed 1200 in ka badan ayaa durbadiiba u soo hambalyeysay Naasir Cadceed iyo Xamda Xaaji Oktoobar gabadha yar Taqwa ay u dhalatay lamaanaha runtii dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmeen intii aanay gabadhani u dhalan sababtoo ah waxaa jiray su'aalo fara badan oo kusoo noqnoqonaya qoyskan gaar ahaan Xamda taa oo la lahaa Xamda uur ma lihid miya goormaad dhalaysaa waana su'aal runtii ay Xamdo si aada ay u dhibsatay sababtana ay sheegtay ayadana goordhow idinkaga sheekeyn doonta sababta ay u dhibsatay soomaalidana runtii ay aad uga digtay bal warkayaan idinku dheereyn aanu dhageysano Xamda Xaaji Oktoobar oo ka hadashay intaanay dhalin caawa dee hadda waa umule intaanay dhalin hadda ka hor Soomaalidu dhibka ay maskaxiyan u geysteen uur ma leedahay iyo maskaxiyan waxa ay u geysatay waxaa jirta su'aal kale oo aad runtii u soo noqnoqota oo si toos ah si dadban balay soo weydiiyay Snapchat ha sheegin Facebook ha sheegin imikana su'aalihii aan idin soo weydiiyay ay qayb ka ahaayeen طبعا حتى برنامجda aan soo gudbinay YouTube ka soo galino dad baa ku soo hoos qoro aan arkaa wala bas su'aalooda waan sraacin doonaa horta marka hore intaan jawaabta bal halkan ka sheegin waa Faadima Maxamed waxay tiri waxaan ku weydiin lahaa markaad maalin dhaweyd isla lugeynaysan adiga Naasir waxaad ila eekayd qof xaamilo ah markaas ay wax yihiin maladayda ma saxba mise cunto ayaad ka soo dharagtay عيب عليك وكاس سؤالها أي حمدة أي كدودي أما بدي هذا يقول بستي وحكي من السدا وكله قف بحث ذا صوح اللي وحوليه هذا ما أنت تكدركتي مس أور بالذا ما حارت ذاتك أور كيس إيو أور لأنتو ذات كان دبر ديجانو حن جرواي قفكي أور لا يقف كان أور لهين إيه لما أنا إله بأولاد بحيه محاذا دبر ديجي سومالية محاذ دبر ديجي قفكي جور سدا هدو سنة دلني هدو لبس سنة هدو لبعتن سنة دل إله أقدري محاذ دبر ديجي taaba ugu ceeb badan dadka hadda aad arkaysaan ma sha Allah aad baan ugu faraxnay guurka maxay ahayd aad baan ugu faraxnay babyga dhashay gabadha soo barbaar ma sha Allah soo qoray waxa laga yaabaa kuwii inay ka buuxaan kuwa badan oo awal soo qorayna ma dhashaatay maxaad u dhalweys taasina waa ceeb waxaa kaloo ka sii daran gabadha niyadda ka dilaysa marka waxa lagu waaninayaa sida gabadhan ba idin sheegtay in gabadha hadii aanan ilaahay waxba siinin aadan adinkuna aadan uga darinin oo su'aalo ula soo taagnaan maalin iyo habeenba waana wax ceeba waa tahay ku sii soco jawaabti bal aanu aragno طبعا maalinka waxaan u maleynayaa intaas Faadimo inay soo daawatay barnaamij aanu meel lugeynay aniga Naasir oo aanu ka soo baxnay maqaayad cunto ka soo cunay marka su'aashu dalataasi si daba socotaa isla su'aal kale ayaa si daba socoto Maslax Axmed uu soo weydiiyay waxay uu yiri assalaamu calaykum Xamda waxay u eg tahay in ay uur leedahay oo waliba gabar sido waliba gabar sido war dadku dhib badana waliba gabar sido dadkii uurkooda qarsaynoon dooneen inay dadka u sheegaan wixii rabay inay sarbaraas ka dhigaan dad baaba ilaahay dhuunta kaga soo ridaya cirka kaga soo dhacayo kor intay ka arkaan leh war heel inaad uur leedahay gabar sidaan u maleynaya ma sida inta waxay ka rabaan ma sida laakiin ayagu waxay ku gaabsan doonaan inay haa iyo mee toona ayna dhihin waa tahay ku sii socda sheekada saadaalin fiican bad hata in hawada saadaasha hawada lagu diro weeyaan ultrasound ki way sama computerki aad iyo aad buu maasan tahay su'aashan waa su'aal soo noqnoqota
su'aalo badan oo tan xidhiidh la lahaana waanu ka nimi labadiin baan ka soo qaadanay soo qaadashada qudheeda xataa umaanaan soo qaadanay inaan ka jawaabo halkan aan idhaahdo haa ama maya laakiin waxaan usoo qaatay bal in ma waragtid ba heesta inaad qaadid adaa waxay gudaha beeray miya anaa ka maqlaa imika dabcan horta muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada usoo badanaya in lamaanayaashu ay uurkooda soo bandhigaan social mediaha kusoo shaaciyaan iyagoo heestii adaa ubaxay gu dul beeray soo kor saaraya laakiin annaga marnaba qorshaha iyago ma ahan ilaahayna hana waafajiyo haddaan uur leeyahayna dee waa wax la tiriyo waa 9 bilood oo ilaahay hana gaarsiiyo waa wax dhamaada haddaanan lahayna ilaahay hana siiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa oo aan mar walba ka fakaraa bal in Soomaalidu ay su'aasha noocan oo kala ah ee qallalan ee la isoo weydiinayo uur ma leedahay oo gabadha hadda guursaday iyo hadii 10 sano la qabayba la weydiinayo bal aynu wax ka wanaagsan ku bedelo oo duco ku bedelo oo qofkii aynaan tusaale ahaan bal waxaad qiimeysataa gabadh muddo la qabay oo aan uur lahayn oo haddana mar walba leeyahay uur ma leedahay oo gaar laga hayo gebigeediba dabcan waad ka raali gelin inaan idinka jawaabin xumaana ima soo weydiinaysaan waad ka raali gelinaya mar labaad waxaad tihiin dad nala jecel inaan awlaad dhalo oo aad aragtaan inaad awlaad rabbina siiyay aad indhihiina saartaan insha Allah waana imaanayaan laakiin anaga marna qorshahay kuma aha inaan tahan ku soo fariisano uur baan leeyahay marka intaasaan kaga baxaya laakiin waxaan jeclaan lahaa bulshada Soomaaliyeed inay su'aalahaas oo kale ma garanaysaa inaga yara baandheeyaan waa runta xamdaay su'aalo qalaxan oo qalalan bay dadka la hortaageen Soomaalideena ma sha Allah Allah barakeeyo waxaan filayaa inay waanadaada qaanad doonaan ayna ka waantoobi doonaan aadna u sheegtay halkay dib u leedahay hooyo aanan ilaahay wax siinin oo muddo uur sugaysay iyo dadka erayadooda naxdinta ah ulaha filkimaha hay'ad adag ee qalalan ee soo taagan halka ay gaarsiin karaan hooyadaas iyo reerkaas wada dhisan wali qaybo kale ayaa ii harsan bal aan ku sii socdo su'aalo fara badan ee dadku horta soo weydiiyeen oo muuqaalka waxaan ka soo qaatay su'aalo la soo weydiiyay ayagoo ka jawaabaya marka bal markaana aan idin tuso wax yar oo ku saabsan sidee horta isku barteen Xamda Xaaji October iyo Naasir Cadceed barashadii Xamda runtii barasho farxad leh bay ahayd sidaan isku baranayna waa si mataqaana aan dadka dhan la wadaagnay sidaad ogtiin Xamda waa waxay tahay ama ay ahayd inaan caan ah anigana baraha bulshada ayadana anigana baraha bulshada ayaan ku jiray marka baraha bulshada wuxuu sababay dad badan oo kala fogaa ama aanan jaanis isu heli lahayn inay is yaqaanaan marka barashadeeni waxa sabab u ahaa baraha bulshada runtiina barasho waxay ahayd khayr leh waxaan isku baranay sidaas Naasir waxaa la soo weydiiyay su'aal ahayd adigu qoys hore ma soo martay ama reer hore ma soo yeelatay Xamda si horta ma la guursaday waa kuwan ayagu ka jawaabay aniga hore ayaan guur soo maray caruurna Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay oo waa 3 halkan ayaan ka salaamayaa dhamaantood Xamdana inaan baahay gabadh yar oo 15 jir ah dhiisho wali caana ka dhanta intaasna faan weeyaan anigu guur hore ma soo marin inaan kan baan sugayay anay sugayso ma sha Allah Ilaahay baa igu sibay kaale iska arag qosol iyo damaashaad iyo farxad baa halkaa ka dhacay ugu dambeyn warkeedin ku dheereemay waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo Xamda Xaaji October iyo Naasir Cadceed oo wada garanaysaan oo caawa aan u hambalyeynayno gabadha yar ee u dhalatay maanta taariikhdu ay tahay 3 November loo bixiyay taqwa bal horta nolosha jacaylkooda iyo aaska gurigooda iyo kalsoonidoodu halkay gaarsiisan tahay waa kuwan ayagoo noo sheekeynaya jacaylka wuxuu ku dhisan yahay ma garanaysaa isla qabasho isla sid isla hayn yeelin labadii qofba ay ma garanaysaa hareeraha isla hayaan isfahan jacayl dheelitiran marka isfahankayga waxaa fududeeyey ma garanaysaa jacaylkayga waxaa fududeeyey inaanu nahay laba qof oo kalsooni ay dhex taalo kalsoonida waa furaha jacaylka sidoo kale fariimaha la isdhaafsanayo qof baa wax laga yaabo jacaylka dabcan badana marka hore qof buu ku horbeermaa oo uu galaa qofka kalena waxa la rabaa qofka kale inuu qalbigiisa 100% siiyo marka labada qof waxaan shaki ku jirin inay is jeclaanayaan oo isu soo dhawaanayaan dad waxaad arkaysaa markuu qofka rabo inuu soo jeclaado waxa laga yaabaa fariin qurux badan inuu qoro lamaanihiisa ama gabadhi baa qoraysa ama wiilkii baa qoraya waxa laga yaabaa thanks in loogu soo jawaabo qalbiga dhaawac
annaga isfahankaygu wuxuu ku dhisan yahay jacayl, kalsooni, is-ixtiraam, iyo qofba qofka kale inuu qadariyo. runtii isfahamkuna ilaahay baa bixiya oo ma garanaysaa dad baa jiray si kasta isugu dayaan inay isfahmaan ay mararka qaarkood ku adkaato, laakiin alxamdulilah ilaahay anaga wuxuu noogu deeqay inaanu isfahano oo muddada aanu xaaska ahayn iyo ka hor intii aanan xaaska ahayn aan shukaansanayna uu ilaahay iska fahansiiyey. marka waxaan anigu aaminsanahay in arwaaxdayadu ay isgaranaysay oo wada jaan qaaday. maasha allah, allah idin barakeeyo. kuwaasina waxay ahaayeen xamda xaaji oktoobar iyo naasir cadceed oo ka jawaabay su-aalo fara badan oo ay dadku soo weydiiyeen, gaar ahaan daawadayaasha ku xiran youtube-ka xamda xaaji oktoobar iyo weliba kuwa naasir cadceed. aad baa u mahadsantihiin gabadhaas yarna waxaan leenahay baarakallah fiikum. tan iyo kulantadayna dambe asxaabi waxaan kaga tegaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.